iyo waxa qoraxda hadda aan taagana iyo waxa aan dhafrayno iyo waxa aan u dheelmanayno oo uga soo tagnay deegaankeenni waxa waaye dhibaatada iyo mujrimnimada iyo daalimnimada iyo caasinimada nimankaas ay dhulkaas ku baabi'iyeen waaye waxaan rabaa inaan hal nuqdo saaro nimankaas saa ogtihiinba dadkii saddex u qaybiyeen qayb qaraxay ku laayeen oo arrinta hadda sababo ugu dambaysay 1 kiiloomitir oo isku weer ah ee wax alla wixii ganacsi yaalay ee dadkii masaakiinta ahaa ee wadadaas maraayay ayuu hal mar la jaray dadkii marka qayb qaraxay la daba taagan yihiin oo waxay ku baabi'inayaan qaraxay ku leynayaan qaybna waxay la daba taagan yihiin bistoolado waxa ugu dambeeyay ninkii odagaayo hadda aad maqasheen iyo dad kale waay haddii marka hadda annagu meeshaana furuntii waay hadda waxaad ogaataa ajashu inkastay waqti leedahay haddaad laabatana ama qaraxuu kugu dilaa ama bisoodu kugu dilaa waxaa sharaf leh oo ilaahay hor sharaf ku leh oo karaamo ah qofka asagoo la falgalaayo oo naftiisa iyo nafta ummadda difaacayo oo nimankaas musaaraca la samaynayo ninka la dilay laakiin adoo shaah iska cabaayo oo maqaayad iska fadhiyo cunugan 12 jir ama 14 jir inuu inta teetee soo qaato oo ku dilay ilaa hebel meeshaan ku dhintay iyo qofka maanta furuntan ku dhinto ma sinna walaalayaal waxaa la rabaa marka hadiiba dadka inay dilaan ay qorsheeyeen oo ay qarax ku laynayaan oo xataa qaraxii dadkii ka hadlay culumadii ka hadashay xataa wadaadkii masaajidka dharkeenley waxaa loo dilay wax kale ma ahayn maxaad qaraxaan uga dadka dhibaatada loo geystay oo marasta ah oo odayaasha ah oo ilmaha ah oo caruurta ah oo la baabi'iyey maxaad u sheegaysaa loo dilay hal kelima rabaa inaan idin sheego 2008 ma dhowda 2008 waxaan xasuustaa nimankan xilligaas waxay ka gubanayeen in la yiraahdo muslimiinta ha dilina dadka muslimiinta ha laynina war dhiiga dadka muslimiinta dhaaf way ka gubanayeen lianna kuwa hadda ay haystaan islaam ma yaqaanaan ay la joogaan oo xoolahooda ay cunayaan oo ay canshuurayaan oo ilmahooda ay holaca gelinayaan ayagaas xataa islaam ma yaqaanaan iska badaa ay sheeg in adiga iyo annaga iyo waxa nala midka iska daaba kuwa ayaga la joogay waay qisooyinka ay hadda la soo baxeen iyo xaalufintay la soo baxeen iyo nimanku wuxuu yiri awooto maxaa ku ogeedo ilka la'aan haddana wuxuu yiri waxay ku darsadeen indha la'aan nin oday hadda wuxuu dhahay ma taqaanaa oo la yaab ah intay u yeereen ee waxay ku yiraahdeen dadka dhiigga leh oo macawisleyda la baxay oo dhiigga ku dambeeyo dadkaas haday wax naga haleeyaan deegaankan waxa joogana waa baabi'ina ceelashoodana waa gubaa yaa hal xabana ka fiigi maayo heshiisna waaye saxiix waraaniga ma ninka kula dagaalayo oo dhiigga leh oo damiirkiisa iyo dadnimadiisa inuu difaaca rabo ma ani ka celi karaa waraani ka ma celi kare marasaan iska ahay maras ma tiduur waxa kugu fila marka waxa ay sameeyeen 30 qofood oo ka soo baxday beledweyne ka soo baxday oo caruur leh oo haween leh oo dhalinyaro leh oo nooc walba leh intuu fail geliyay baas ma ku tix muxuu ku tixaa haday islaamnimo jirto islaamnimada uu sheega haday jirto islaamnimadii aaw damiirkii ma jiran inta ma jiraan baasoo ku tixay xataa ugu ma simin dadkii eelka ahaa ee dadkaas inay dhamaadeen maqlay oo baabuurta soo qaato oo meydka raadinayna miino u dhige ilaahay baan kugu dhaariyay ka war jariimada intaas ka weyn ka war baan kugu dhaariyay baabuurtoodina waa gubaa dadkii baabuurta waa laga gubay guriyihii laga gubay ummadii waa la leynayaa ceelashii waa laga qarxinayaa xoolihii waa laga dhacayaa dadkii waa hunduraanba wuxuu leeyahay idaa mana daynaay haddana intaasoo jariimaa intuu geystay ayuu haddana dayneen marka qof damiir leh dagaalkan ayaga nimankaan ugu qasbayo sababtoo waxay ugu qasbayaan waxay tahaba qof damiir leh waxaan ma fiirsan karabo wallaahi oo billaahi oo tallaahi
waxa ka dhacay hadda Soobe iyo dadka dhibaatada ay u geysteen qofkii arka inuusan ii sheeg nimankan oo dhowranin walaalayaal marka haddii marka aanan deegaankina ku fakanayn oo anaga meeshii ognahay kulli waa ognahay xanteena ma moogine darbigii ciidii yaristaaheed yaa iyo wadada yartaaheed iyo meelihii aan isku ilaalinaynay oo gurihii lagu qaaliyeysiiyo oon xogaa difaaca ka dhigayn hadduu qarax nooga daba keenay hadduu bisood nagu raadinayo ina adeerow ma baddaa gelaynaa badda ma gelayno ilaahay mahadii waxaa saakay in asagii maanta la goobayo waa ilaahay mahadii waa inuu gambadaa marka waa in markooda ay gambadaan xarfaanay waa soo gambanaa xabaar mogta yaa ninba maruu gambanaa waxaan rabnaa nimanka cadowga ah oo daalimiinta ah inay maanta gambadaan say u gambanayaan marka waxay u gambanayaan annaga inaan diyaar unahay inay gambanayaan waa la arkay ay ducafo yihiin oo waxay yihiin aysan jirinna idinka hadda boorsamiidda waaye mogta filinka waxaa jiro intaa filinka la gaarin saxda ah waxyaabo la sii sheego dadka lagu sugaa jirto dadka sharaabada gal waa yaqaanaan yaa hadda waa soo baroobeysay mogtahay marka yaa waxaan kaloo kuu sheegaa xataa dagaalada marka la gelaayo intaasoo dagaal la gelaayo nimankaas gooni u socodka ah ayadoo gaalada u jeedo ay inta ka leexdaan ay dadka muslimiinta baabi'i jireen wallaahi oo billaahi oo tallaahi markaasay dhihi jireen xataa dadkaas gaalada la diriraayo iyo kuwa oo hadda ii sheeg ayaga kuwa dirirooyo iyo macalkan lala diriraayo sawaa waaye ciyaartan kambiyaan fadhiisanay dhahayaan oo maxaa rabtaa kambi waxaan u fadhiisanaa dadka markii ay dadka iska dhameeyaan ama dagaalkan u dhaco inta soo hartaa aniga aan maaragtay afjaraa ka bacdina waxaan sameynaa ii sheeg waa joogaa nimankii marka 2009 taariikh aan tusayaa nimanka culummo loo keenay culumaa ul islaam loogu yeeray culummo carab iyo cajam la inta loogu yeeray intay fariisteen ay yiraahdeen war nimayahow haddaa diin wadaan oo shariica islaam ah wadaan dadka dad muslimiina waay shariicadana ma diidayaan waana ku dhasheene dadkaad aaminsantihiin inay culummo yihiin oo ay diin yaqaanaan dadkaas keensada lagu yidhi say isaga daba meeraysanayeen ay waxay yidhaahdeen fiiri sheekh adiga dhegaysta annaga xaqaan wada aniga haye xaqa raaca ma haddii kale tigidkaaga goosa iska bax adiga carfaantan waa isgubaynaa oo maxaa ku gubee waaba gubaaba waxaan xasuustaa dawladdu waxay ku dhawaaqday oo culimmada ay soo jeedeen 2009 waxay yidhi 2010 in shariicada islaamka baarlamaanka intay fadhiisteen ay 100% waxay gacanta u taageen waa dad muslimiin ah in shariicada islaamka lagu dhaqmayo xuseen taare oo qaraabanahay oo qaraabo macnaha oo nuula xaglinayo qaraabada ma aha mogta al-shabaab laakiin lagu xaglinayo muxuu yidhi shariicada islaamka hadday qaatay xataa ma dhaafeenu leh wallaahi inaan been sheegin kelmadda aan la yaabo waay hadday shariicadii qaateen xataa oo xataa ay dhaheen shariicada islaamka warigata kitaabka ilaahan ku dhaqmaa oo diinaan ku dhaqmaahe war dhiiggayga ii dhaaf ku dhaafi maa oo haddaa shariicada islaamka iyo diinta islaamka aadan igu dhaafaynin oo islaamnimo aadan igu dhowrayn oodan ehelnimo igu dhowraynin yaa maxaa igu dhowraysaa marka waxaa kaloo cajiib ahayd culummada way fadhiisteen nimankii carabta ahay culummada waxay yidhahan mataqaanaa war dadkaan xijaaban oo masaajidka galaayo oo ahlu diinka ah oo asal diin ahay waaba dad muslimiin ahee nimankaa maxay u laaynayaan war maxaa laysu laynayaa qisada xanuunka badan oo kale aan ii sheegayaa nin tabliiq ahaayoo xoogaa yara sisi ahaa ayay nimankaan 7 beri meel ku xirteen intay wateen markuu soo laabtay marka waxaan asliyanba diin ahayn markuu soo laabtay ay wuxuu yidhi ninkiioo waxaa yimid xurqaysan yahay 7 maalmoodaa alaab lagu soo guray waa yimid wuxuu yidhi haye wax walba oo la arko noolba waa la dilaaba wixii noolba waa la dilaa hadda waxaan sheegay aniga wax aan ayaga ku barmagaana maaha waxaan ku yidhi wax walba ma la dilaa haa oo maxaa loo dilaa ma shareecadaa loo fiiraa qofka mase waa la iska dilaa maayo yidhi wuxuu yidhi alqaacido waxay dishana waa la dilaa alqaacido qofkay diisana waa la deehaa masaajidaan ku jirnay waxaan yidhi haddii ba arrinta halkaas taagan tahay oo ma kitaabka alqaacido isku bedela haa dadkan aan laysaa rabtaa waa la laynaa dadkan waa la laynaa culummadii waa baxeen fod way soo saareen dawladda dhinaceedii waa aqbashay waxa la soo waxaa ka mid ah 4 bilood in ciidamada ajnabiga ku baxaan xabadda in la joojiyo shariicada islaamka lagu dhaqmo xaaladda la dejiyo mayo yir maya shariica ku dhaqmi maayaan shariicada ana mas'uulka ah oo say mas'uulka tahay aniga waxaan ahayn bagaal waayo
hayse yeele marka qaraxaan ku leynaabo ma kula taa dadka ay qaraxa ku leynayaan ee marasta ah dadku waxay ku yaaban yihiin ku sheegaya waxa la leeyahay dadka muslimiin ma hamiya islaamka ay leynayaan dadku waa dileen aayadii quraanka la sheegaya ahadiista la sheega ma ku socotee dadkaas oo laayay wuxuu aaminsan yahay inay gaala yihiin marka meel horta hadda lagu gambada ma jirto meel loo harana ma jirto hadda bay'adi oo soo gabagabay insha Allah bay'adi waxaan rabaa qorraxna waa joognaaye bay'adi hadda oo sheegay oo sheekhaas sheegay in la galo way bay'ada la galo war xagee u laabanay meel u laabanay marka daan weynay adeer fiiri naf ayaga nooga horeysa marka naf ayaga nooga horeyso ma jirto annaga marka ayaga waa buqaad waa dhaalimiin sida dawaadka uu sheego waaye waxaan ka qabanaynaa diintaan ka qabanaynaa dalkana waa ka qabanaynaa dadkana waa ka celinaynaa ilaahayna ajir baan warabnaa subxaanahu wa tacaala marka walaalayaalow soo sheego waaye bayca waxaa la yidhahdaa ballan la dhahaa ballanta qofka ka baxana waxaa waaye ballan la'aan diin la'aan waay sida aan ugu ballanna marka inaan nimankaas nafteenna aan ayaga ku jebinno sidaas ha noo ahaato waxyaabaha yarka ah oo hadda insha Allah xilibaan doona la joogtaa waqtigan aad uu isaga kulul yahay waxaan rabaa wixii kale oo ku saabsan ishuuga hadda laga dhawaajiyay iyo qaabka ku saabsan inaan is-ixtiraamno waay haddaanan is-ixtiraaminna waxa waaye qaa'id ma jiro hoggaan ma jiraayo